dhalinta ku nool magaalada Mandera waqooyi bari Kenya ayaa sheegay inay ka rajo dhigeen mustaqbalka siyaasadeed ee deegaanka ee ku aadan dhalinta kuwaasi oo aan laga talagelin siyaasadda mana jiro shaqooyin ama mashaariic lagu horumarinayo dhalinta ku nool Mandera waqooyi bari Kenya. Xasan Abdin Maxamed oo kamid ah dhalinyarada ku barbaaray waxna ku bartay Mandera ayaa waxa uu sheegayaa in gabi ahaanba uu ka rajo dhigay siyaasadda guud ee lagu maamulo deegaanka waxa uu xusay inuusan muuqan rajo mustaqbal dhow ee deegaanka lagu bedelayo. Si kastaba ha ahaatee Xasan iyo dhalinta la midka ah ee ismaamulka Mandera ayaa ku eedeynaya in siyaasadda deegaanka ay u afduuban tahay gacantan ay ugu jirto shakhsiyaad gaar ah waxaanan jirin maqaamkii dhalinta ay ku lahaayeen siyaasadda mana jiro wax horumar ah oo deegaanka ay ka qabteen shakhsiyaadkaas marka laga reebo in ruuxii xil qabto oo dantiisa kaliya ka shaqeeyo. ka daalanay maqalka siyaasiyiinta waaweyn oo dhahaya waxaa tihiin hoggaanka mustaqbalka berito laakiin aysan jirin wax tilaabo ah oo dhalinta looga qayb gelinayo arrimaha siyaasadda oo ka jira deegaanka. odayaasha deegaanka runtii waxay kaalin aad iyo aad u weyn ay ku leeyihiin habsami u socodka siyaasadda taas oo xilliga doorashada ama xilliga doorashooyinka ay ku soo xushaan shakhsiyaad ayaga jaabkooda ah si ay ugu gaaraan danahooda gaarka ah. xilliyadii hore ilaa hadda dhalinyarada ma haystaan fursad ay ku soo doortaan qof ayaga rabitaankooda ah taas oo runtii dhalisay dhibaatooyinka badan ee deegaanka ka jira inay ku dhacaan dhalinyarada. Xasan hadda waa suxufi ka howlgala magaalada Muqdisho kana soo hayaamay magaalada Mandera markii uu arkay xaaladaha siyaasadeed ee ka jira halkaasi oo dhalinta aysan waxba lagu kulahayn odayaashuna ay majaraha u hayaan. waxa uu aaminsan yahay in ka qayb qaadashada dhalinyarada arrimaha siyaasadda ay keeni karto horumar waarta iyo mustaqbal wanaagsan oo deegaanka uu ku tilaabsado. runtii waxaan ka qoostay inaan codeeyo kadib markii aan arkay oday dhaqameedyada siyaasadda gacanta ku hayo sida ay ugu tumanayaan xuquuqda dadka danyarta ah ee ku nool dhammaan ismaamulka deegaanka Mandera xilliyada doorashada. waxaan codeyn doonaa markaan aragno misna aan helno qof matali karo danaha dhalinyarada iyo dhammaan danaha dadka danyarta ee ku nool dhammaan ismaamulka deegaanka Mandera. ugu dambeyn Xasan ayaa ugu baaqay dhammaan dhalinta ku nool ismaamulka Mandera inay u istaagaan deegaanka sidii ay wax uga bedeli lahaayeen loona heli lahaa maamul ay majaraha u hayaan dhalinta iyo dadka aqoonta leh horumar iyo xasilooni waarta. waxaan halkan baaq ugu dirayaa dhammaan dhalinyarada ku nool ismaamulka deegaanka Mandera in ay u istaagaan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen siyaasadda deegaanka oyna u keeni lahaayeen horumar iyo wanaag ay ugu horseedi lahaayeen dadka danyarta oo xaqooda lagu tumanayo oo ku nool ismaamulka